93 kaasaan ka qaybgalay anigoo ka socda group Soomaaliya dhinacna advisor oo ah David Shin oo marka ahaa East African Desk haystay marka shirka waan tegey oon ka qaybgalay shirkaas waxaan ku xusuustaa nin generaalkii madaxda meesha watay shirka ninkii sameeyey General How ayaa Soomaaliya la hadlay marka group wax loo qaybsan yahay aydiidoo gooniya iyo intii kale oo isu tagtay intii kale oo Cabdilaahi Yuusuf waa shirku aydiid keeni jiray isaga aydiid soo kaxay waa markii ugu horreysay oo aydiid la ogolaaday yaa western ku ogolaadeen inay la hadlaan iyo shirka in la keeno iyaga Cabdilaahi Yuusuf u diray inuu keeno General How baa la hadlay Soomaalidii wuxuu yidhi Soomaaliya haddaad maanta heshiisaan waxaanu idiin ogol lahay billions of dollars inaanu Soomaaliya dhisno ya waanu diyaar u nahay laakiin haddii aad diidaan ma maqasheen meesha la yiraahdo buu yidhi Afghanistan ha Afghanistan warkeeda miyaa ku aragteen riyaha newspaper radio TV ku aragteen markaasuu kasaya maya Afghanistan buu yidhi sidaan u tuuray baro idin tuuran ya baro idin tuuran waxaa jawaabay oo marka afhayeen uu ahaa guddigii Soomaalida qanyare nin la oran jiray ba uu ahaa afhayeen qanyara markaa kacay wuxuu General How su-aal ma ku weydiiyaa kasoo haa idinka managaa idin yeeranay hadalka ama dhamaado berigaasay dhabarka ugu jeediyeen Soomaaliya dhowr sanood bay 10 sanood bay ahayd dhowr iyo 10 sanood ma oranaya inay ahayd dhabarka ugu jeediyeen shirkaasaan xusuusnay wuu sheegay dhabarka la idin jeedinaya hadii kale response-kooda wuxuu noqday managaa idin yeeranay waa ka dhaqaajiyeen maalintaa jaaniska ay sii daayeen Soomaalidu ya unbelievable disaster beri dambe oo aan joogay Minnesota ayaan waxaan cazumay David Shin oo markaas safiir buu ka ahaa Ethiopia markaas la hadlay Soomaalidii buu la hadlay joogtay markaas su-aal la weydiiyey wax la yidhi goormay soo noqonayaan Maraykanku ku soo noqonayaan Soomaaliya David Shin wuxuu yidhi idiin rajayn maayo laakiin maalinta argagixiso timaado Soomaaliya ya markaasay soo noqonayaan Maraykan sidii baa dhacday Minnesota markaan u guuray 98 nin aanu saaxiib ahayn aanu isnaqayn ayaa Maraykan mayor buu carariyay mayor of Minneapolis capital city Minneapolis R.T. Ryback waan isnaqayn waan u tago waxaan ku yidhi Soomaali miyay kula shaqaysaa markaasuu yidhi maya Soomaali waaba rabaa campaignkiisii baan u bilaabay first time Somali campaign leader
oo wada meeyar baan ahaa soomaalidii baan ku xidhay soomaalidii markii horto aad bay dee maba fahamsanayn inay waxaan galaan baan tusay in ninkanu hadhow in la shaqaynayo marka halkaasaan ka bilaabay meeyarkaasana aad ula shaqeeyey laakiin soomaalidii oo dhan baan la shaqaysay markii hore way igu adkaysan dadka u soo geliyo waxaan idhaahdaa soomaalida joogta kuwii ugu horreeyeyoo ii soo baxay oo gacani siiyey wayo war ninkaa lala shaqeeyo reer gaalkacay ahay mudug reer gaalkacay ahay qolada soo baxday markiiba oo waxay la qabatay waxay ahaayeen reer mudugga marka aad waxaan ahaa soomaaligii ugu horreeyey oo xisbiga dimuqraadiga saaxadda soomaalida soo geliyey oo aad ula shaqeeyey isaguna aad buu u taray aad buu soomaalida wuxu taray kambanadii madaxweyneyaasha dimuqraadigana waanu gallay soomaalidu way galeen oo anigu aan liidka ahaa John Kerry oo markaa u ordayey madaxweyne soomaalida Minnesota waa la shaqeynay aad baan ula shaqeynay Hillary Clinton waa la shaqeynay Obama isaga iskaba dhaaf marka xisbigu aad baa soomaalidu ula shaqaysay ilhaan xitaa waxaan xusuusnahay inay ahayd dhalinyaradii firfircoona oo berigaas soo galay xisbiga soo galay marka ilhaan waatii halkan noogu timi berdhowto marka airportkaan noogu tagnay marka waxay tiri Maxamed Jibriil is my mentor ya way ku amaanan tahay inay ya xusuusatay inaan la shaqeeyey shirki ahaa Democratic National Convention 2004 oo uu candidate madaxweyne xisbigu u doortay John Kerry ayaan aniguna waxaan noqday nasiib helay doorasho xisbiga gudihiisa laga doortay inaan noqdo delegate to the convention national convention ka Boston lagu qabanayay marka shirka anagoo joogna Boston sawirkaad aragtaan iyo isaga ayaa isna wuxuu ahaa delegate Obama anna delegate baan ahaa equal baan ahayn shirkana loo wada cazumay hudheel baan ku jiray laakiin wuxuu ku qoraa isagu speaker inuu ka noqonayo khudbadda habeenkii keynote speaker buu ahaa marka hudheelkii anagoo joogna xaaskayga la socotay Zainab ayaa waxaa noo timi gabadh reer Minnesota oo black American oo iyana delegeeda ahayd ma aniga ay timi waxay tiri Maxamed ninka halkaa fadhiya ma taqaan saanamay waxay tiri Obama la yiraahdayo he has some African background buu leeyahay oo baan idhi waanu tegay isagoo fadhiya waa salaamay waa sheekaysanay isu sheegay waxyaalbuu ka isaga sheegay annagoo markaa wada hadlayna ayaa xaaskaygu sawirkaa qaaday sawirkaa marka waa galabnimo habeenkii fiidkii baan ku noqonnay assembligii conventionkii furmay markaas mise waxaa hadlaya Obama ninkii aan maanta arkayo isla sawir markaa ninkaa cidi aad uma taqaan Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. khudbaddii uu ku soo baxay buu bixiyey habeenka ayaa dadkii oo dhan way istaageen oo sacabiyeen wuxuu yidhi wax dimuqraada iyo wax republicani ma jiraan waxaanu nahay Americans we are all Americans markaasaa la sacabi khudbaddiisa wuxuu yidhi hadalkiisa exactly wuxuu yidhi
wuxuu yidhi a skinny man with a funny name Her father worked on oil. who will give him an opportunity yaa siin kara fursad opportunity isaga iska hadlay only the United States of America senator buu u tartamaya senator buu tartamaya haa markaasaa dadkii la sacbiyey la ooyey annaga bay seegin oo ninkii maanta aanu la fidhay yaa oo miskiinka ahaa markuu shirkii dhammaaday saasaa loo daba yaacay bal ninkii cilada anigu aan ka helay soo hel madaxweyne obama ma noqon even shirkii intii maalinta saa horta la yidhi waa madaxweynaha soo socda maalintaa ayaa khudbad baa ka dhigtay ninkaa khudbad keliya khudbad taariikhiya oo aan joogay khudbadda